askari dhulka ilaalima dooyo qof walbana dhulkeeda waa taqaanaa askartu waa tegee waxaa isku soo heraaya annagiyoo dhulkayni lahaynoo nagala dunshay iyo dadkaana waxaa iskugu yimiday kelmadii xumaay ee dadka dhulkii dhacay iyo dadkii hoos joogay ee u sabcaayay shala ka yeera dartooda iskugu yimid waa dhul dadkii deganay guryahooda ayagoo degan baala lagula kor jabshay waa dad aan ka qaadan maacuunkoodii ilmihii iyo sariirahay ku jiifa lahaayeen ilmihii keliya gacanta ka qabsaday mana yeeli doono mana qaadan doono mana ka yeeli doono una fadhiisamayno bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamaa ummadda islaamka oo siinay deganaa jirtay oo dhulkoodii la dhacay haddana beenbeenta laga abuurtay ee meesha iskugu yimi qaybteeroo meesha iskugu timiday waxaan ku salaamaa 114 ku salaamaa salaan kadib waxaan u mahad celihaa idaacadda noo timid ee xaquuqdayna nala jirisa ee himilo waxaan leenahay jir oo joog xaquuqda naga maqneed ee inay dhalo doonto aan jecelnahay ayaa nagulu dadaashay ee waxaan leenahay jir oo jooga intaas kadib dadka maanta isku yimid wuxuu iskugu yimiday dad yoolyoolahoo waqti aan isku yeerin waayo weliba ee meeshaan iska hela ma ogiye dadkii yeeridiisi waa dhimantaa waana isku imaan doonyaa insha allahu jimcada iyo wixii lamida dadka dhulka lahaay jimcada iyo waxay lamidoo isku imaan doonaa dadkaana wuxuu iskugu yimiday kelmadii xumaay ee dadka dhulkii dhacay iyo dadkii hoos joogay ee u sabcaayay shala ka yeera dartooda iskugu yimid waa dad meelahaan qofuma meel ka soo tagtay ee dad looma yeerin laakiin jimcada dadka waa loo yeeri doonaa waana imaan doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan leenahay dadkay isku yimida shalayo ma metelaadna uma laha dhulka siinaay ee macallin dhiblaawe inta badan macallin dhiblaawe oo leeyahay deganayna metelaad uma laha waa dhul dukumiinti leh waa dhul dadkii deganay guryahooda ayagoo degan baala lagula kor jabshay waa dad aan ka qaadan maacuunkoodii ilmihii iyo sariirahay ku jiifa lahaayeen ilmihii keliya gacanta ka qabsaday qofka isluhu qof gurigeedii lagu dunshay ee dukumiinti haysata ee sariiraheedii iyo maacuunteedii lagu baabaashay ee cunugii gacanta laga qabsaday ee inya la jajabshay lamayeerigii ka soo baxay meelaha miisaankaa la geystay qofka inay degta rabtaahu ha ku tashato guru hantida ay gelisa hanti ka badan in guriga lagu jajabshaa ku tala gasho dukumiintina loo haysto cid aan ka tuugayna lama arko dukumiintiga oo lahaay oo sharciga ahayna waa haysanaa cid laga tuugaahuna ma jirto ha ku tala gasho nimankiina dhacdada oo shalay dadka dhulka dhacay naga dhacaya dhinaca ka roogsaday ee 45 nina ee garbaha u naqdayo ha ku tala galaano dhulkayna anagu kamana tegi doono waxaan leenahay walaalnimaan dadka ku dhowraynaa ee walaalnimaha nagula dhowro macallin dhiblaawe way yaqaanaa dhulkiisana waa yaqaanaa dadka ka dhacana waa yaqaanaa ninka la leeyahay ragga dhulkayna dhacaya oo ilaahay waa ku roon yahay sida xun iyo loo soo siiyo sida xun inay ku qaataan rabaano iskuma dhaafi doono dhulkii ha ku tala galaano ismaaciil oo kamid yahay ma ku dhaafi doono mana yeeli doono ha ku tala galaano dhulkaynu nooli waaye waa dhul ilaahay waa ku roon yahay abkaaba waa dhul dhibaatadii ka timaada mas-uuliyadeeda ay qaadi doonaan dadka sameeyey sida xun sameeyey dadka shalay idin yimid 4 qofooda ee gacanta taagtay ee yiri dhulka waa la degay dhulka waa la heshiiyey dhulka waa la qofan kale heshiina ma jirto lama yeerigo la qaada anaga noo madala nin walbana dhulkiisa waa yaqaanaa waliba bishii dhamaatay 25 in lama yeeriga la qaada loo sheegay lama yeelin ilaa wali waa saaran yahay askari dhulka ilaalima dooyo qof walbana dhulkeeda waa taqaanaa askartu waa tegee waxaa isku soo heraaya
أنا جيون الكين لهنا نقلدون شيء إيه إلى وكورية إيه دبالك اللي سيء لعكتيس نينك لعكت الدبك نلك كفر دي يعني جالس كسورينا مرة يالي دونه مرة قادة دونه مرة كيالي دونه أنا فدي سماينه أرول كاينه ما كتجينا أرول كاينه ما كتجينا أرول كاينه ما كتجينا أرول كاينه كم تجدونه وأنا سلامتين